بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكسود هذا مركله إيو FPL Somali وأنا هو أهدير عبد العالي oo nala socodsiinaya xubin kale oo aan ku falanqeynayno isbuuciyaareedkii la soo dhaafay oo xaqiiqooyin muhiim ah la diiwaan geliyay. Saaxiibal waxay noo soo gabagaboway isbuuciyaareedkii lixaad oo kulankiisa ugu dambeeyay la ciyaaray xalay. Kulankaasna waxaa isku arkay kooxaha Crystal Palace iyo Brighton. Kulankaasi waxa uu ku soo dhamaaday 1-1 oo daqiiqadii ugu dambeeyay kooxda Brighton ay gool ay iska keentay markaas ay 1-1 ay sidaas ku soo dhamaatay. waxaan galeynaa mowduuca ugu muhiimsan iyo sida uu yahay isbuuciyaareedkii dhibcaha ugu hooseeyay la keenay. Waxaan fiirinaynaa si guud dhibcihii kabtanadii ugu badnaa ee la saartay iyo sida maamulayaasha groupka FPL Somali ay dhibco u kala keeneen iyo maamulaha ugu fiican toddobaadkan. saaxiibal waxaan xasuusinayaa inaad ku soo biirtaan channelkan YouTube-ka ee FPL Somali oo aad ka heli kartaan warar la xiriira Fantasy Premier League sidoo kale wararka UEFA Champions League Fantasy-ga sidoo kale aad ka heli kartaan. sidoo kale dhinaca Facebook, Instagram iyo Twitter-kana nagu soo biira oo halkaas warbixino ayagana sidoo kale aad ka heli kartaan. waxaa jira group oo WhatsApp ah oo aan sameynay asna oo saaxiibada dhamaantood ay inta bogga hadda ku jirta badankood ay xaadir ku yihiin oo markaasi lagu qaraxaysan karo laskuna wareysan karo shaxda markaas iyo kulamada markaa jira si oo live ah la iskaga wareysan karo. halkaasna ku soo biira oo linkiga wuxuu saaran yahay qaybta hoose. group waxaa jira sidoo kale Facebook ah oo asna aad ku soo biiri kartaan badankiin hadda ku jirtaan laakiin inta ka dhiman saaxiibadana ugu yeera aad ay mahadsantiin. saaxiibayaal marka toddobaadka hadda la soo dhaafay waxaa dhacay kulamadii sida caadiga ahayd isbuuciyaareedka lixaad. toddobaadkani waxa uu ahaa ciyaareenka kabtanka ugu badan la saartay wuxuu ahaa Cristiano Ronaldo, laakiin Cristiano Ronaldo wuxuu qayb ka ahaa kooxda Manchester United ee halkii eberka looga badiyay. marka xaqiiqooyin waxaa dhacay marka in kabtanadii ugu badnaa ee la saartayna asaga uu ahaa in maamulayaasha inta badan ay dhibco hoose ay keeneen. ciyaaryahankii marka doorashadii ugu badnayd waxa uu ahaa ciyaaryahan Mohamed Salah. ciyaaryahan Mohamed Salah ayaa ahaa ciyaaryahankii loogu doorashadana. Mohamed Salah isna waxa uu keenay 3 dhibcood. marka laftiisa 7 dhibcood ayuu keenay. marka sidii looga bartay ma uusan ahayn inkastoo gool uu dhaliyay haddana kooxdiisa Liverpool waxaa barbardhac 3-3 ay la gashay kooxda Brentford. celcelis ahaan marka waa celceliskii ugu yaraa ee ilaa hadda inta xilli ciyaareedka uu socdo la diiwaan geliyay. celceliska dhibcaha waa 43. marka waxaan soo aragnay 58, 56, 61 celceliska isbuuciyaareedkii la soo dhaafay ilaa 5tii ka horeysay, laakiin isbuuciyaareedkan wuxuu ahaa kii ugu hooseeyay ilaa hadda la diiwaan geliyay. dhibcihii ugu badnaa ee maamulo uu keenana waxay ahaayeen 117. marka taasi waxaad ka garan kartaa in inta badan maamulayaasha aysan wax badan ay ka faa'iideysan. ciyaaryahankii ugu badnaa ee kabtanka la saartay oo soo sheegay waa Ronaldo. kabtanka xigeenka ugu badnaana waxaa la saartay Mohamed Salah. waxaa la sameeyay wala wareegis gaaraysa 13,022,763 maamule ayaa waxay sameeyeen la wareegis ay sameeyeen. waxaa kaloo la ciyaaray jimaarka wildcard-ka oo anigaba aan ka mid ahaa dadkii wildcard-ka ciyaaray oo waxa maamulayaal gaaraya 308,300 ay ciyaareen jibaarka wildcard-ka. sidoo kale jibaarka bench boost-ga waxaa ciyaaray 76,495. jibaarka free hit-ka oo ayagana ay ciyaareen maamulayaal gaaraya 98,223 maamule iyo jibaarka triple captain-ka oo ay ciyaareen 134,785. marka bal si guud aan fiirino marka ciyaaryahanada maamulayaasha amaba toddobaadkan dream team-kiisa ee ugu wanaagsanaa inta hadda toddobaadkan la ciyaaray. waxaa ugu horeeya dhinaca goolhayaasha oo goolhayaha kooxda Wolves ayaa waxa uu keenay 14 dhibcood, laakiin ciyaaryahanka ugu dhibcaha badan toddobaadkan waa ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Aston Villa ee lagu magacaabo Courtney House. Courtney House waxa uu dhaliyay goolkii kaliya ee kooxda Manchester United ay guuldarada kaga kulantay kooxda Aston Villa. kooxda Aston Villa ayaa 1-1 kaga badisay guriga Manchester United ee 1-1 ku badisay. marka kulankaasi ciyaaryahankan waxa uu sameeyay shabaqiisa ayuu ilaashaday sidoo kalena gool ayuu dhaliyay. dhibcihii dheeraadka ahaa ee 3 ahana
waa uu keensaday. Marka sidaas ayuu 15 dhibcood keenay. laakiin waxaa ku soo xiga goolayaha kooxda goolayaha kooxda Wolves waxa uuna helay dhibco gaaraya 14 dhibcood. Goolayahani wuxuu badbaadiyey ilaa iyo 6 badbaadin ayuu sameeyey. Marka taasi waxay ka dhigan tahay inuu 2 dhibcood halkaas ka helay. sidoo kale dhibcii dheeraadka ah ee 3 ahaana uu helay. waxa uu sameeyey caawin ayuu sameeyey. marka uu maamule uu haysto goolahaye sameynaya caawin waa uu uga bedelan yahay kuwa kale. dhinaca daafaca waxa ugu horeeya ciyaaryahanka toddobaadka Hoos oo 15 dhibcood keenay. waxaa ku xiga Cancelo oo ciyaar kooxda Manchester City. Cancelo waxa uu keenay 12 dhibcood. ciyaaryahanka kooxda Manchester City ee Cancelo waxa uu sameeyey dhibcii dheeraadka ahaa caawinta asaas sameeyey laakiin wuxuu helay dhibcii dheeraadka ahaa. marka taas ayaa suuro gelisay in ciyaaryahankan uu noqdo ciyaaryahanka labaad ee daafaca ugu dhibcaha badan. Cancelo wuxuu caawin ka sameeyey kulankii kooxda Manchester City ay 1-0 kaga baysay kooxda Chelsea. ciyaaryahanka kale daafaca asna dhibcaha 8 dhibcood keenay waa Michael Keane oo ciyaar kooxda Everton. Michael Keane ayaa waxa uu sameeyey dhibcii dheeraadka ah ee labada ah ayuu qaatay. sidoo kalena shabaqiisa ayuu ilaashaday. sidaas darteed 8 dhibcood ayuu sidaas ku helay. xagga khadka dhex markaan fiirino ciyaaryahanka Bukayo Saka ayaa dhibcihii dheeraadka ah ee 3 ahna qaatay. dhibco gaaraya 10 dhibcoodna ka shaqaystay. gool u dhaliyay iyo mid kale uu caawiyey. ciyaar oo kooxda Arsenal ay 3-0 kaga baysay kooxda Tottenham. ciyaaryahanka Bukayo Saka saaxiibkiis Smith Rowe ayaa isna keenay 12 dhibcood. Smith Rowe isna gool ayuu dhaliyay mid kalena uu caawiyey. sidaas darteed 12 ayuu sida ku helay. dhibcii dheeraadka ah uu hal ka dheer yahay ka yar yahay saaxiibkiis Saka oo Smith Rowe waxa uu keenay 2 dhibcood. dhinacaasna Saka waxa uu keenay 3 dhibcood. marka isku darkii waxa uu keenay Smith Rowe 12 dhibcood ayuu keenay. Doucouré oo ciyaar kooxda Everton ayaa isna keenay 12 dhibcood. Doucouré gool ayuu dhaliyay. shabaqiisana dhibcii shabaqilaashana wuxuu helay 1 dhibic. 3 dhibcood oo dheeraad ahna uu helay. sidaas ayuu wuxuu ku haystaa 12 dhibcood. Everton waxa ay 2-0 kaga badiyeen kooxda Norwich City. ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Brentford ee lagu magacaabo Vitaly Janelt ayaa keenay 10 dhibcood. ninkan waxa uu dhaliyay gool. sidoo kale dhibcii dheeraadka ayuu helay ciyaartii Liverpool 3-3 ay la gashay kooxda Brentford. Andros Townsend ayaa waxa uu ku socdaa dardar xoog leh isagoo xitaa qiimihiisa uu sare u kacay. Andros Townsend waxa uu keenay toddobaadkani 10 dhibcood ayuu keenay. dhanka weerarka markaan fiirino Jamie Vardy ayaa ugu horeeya oo dhibcii ugu badnaa keenay. halkaasi waxa uu helay dhibco gaaraya 12 dhibcood. Jamie Vardy wuxuu dhaliyay 2 gool. sidoo kale gool ayuu iska dhaliyay oo halkaas dhibco 2 ah ayaa laga jaray. marka sidaas ayuu wuxuu ku keenay dhibco gaaraya 12 dhibcood. ciyaaryahanka kale ee kooxda u ciyaara kooxda Brentford ayaa ah weeraryahanka kaliya ee asna dhibcaha soo galay kaalinta labaad. waxa uu keenay 9 dhibcood. Mobile waxa uu keenay goolkii barbardhaca ee kooxda Brighton ay ku soo bareejaysay kulankii Crystal Palace ay la ciyaareen. intaasina marka la isku dardaro dhibcaha ay keeneen waa 125 dhibcood. markaad aragtid marka ciyaaryahanadii ugu badnaa marka ay keenaan dhibco intaas leeg oo 125 oo kaliya waxaad dareemi kartaa in isbuuca uu yahay isbuuc ciyaareed aad u adkaa oo sida ciyaaryahanadii laga filayay dhibcihii u badnaa sida Lukaku oo kale Cristiano Ronaldo oo kale inaysan dhibco keeninba. Bruno Fernandes ayaa inta badan maamulayaasha iska iibinayeen. taasi waxa ay ka muuqatay qaab ciyaareedkiisii isagoo rigooro iska cunay oo halkaas waxa aad loola yaabay sida isagoo uu taagan yahay ninka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo uu penalty ku qaatay. marka go'aankaas waxa la dhihi karaa go'aan uu Ole Gunnar Solskjaer uu sabab u ahaa laga yaabaa oo maadaama ninkan uu muddo badan rigoorayaasha u qaadan jiray oo markii ugu horeysay ee cunay ay tahay muddo 1 sano ah in uu ka doorbiday in uu qaato Fernandes. marka taasi maamulayaasha iyo waliba dadka ciyaaraha falanqeeya iyo taageerayaashooda kooxda Manchester United waxay aaminsan yihiin in tababare Ole Gunnar Solskjaer uu waqtigiisa uu soo dhamaaday. marka taasina hadda waa wararka ugu xiisaha badan ay ka mid tahay iyo taageerayaasha gudubsan ee kooxda Manchester United. balan fiirino marka groupkeeni liigeeni FPL Somali ee fantasy ee dhalinyarada maamulayaasha ah ay
ay nagala tirsanayeen toddobaad kastana waxaan fiirin jirnay maamulaha ugu fiican ee dhibcaha ugu badnaa keenay haddana waxaa ugu horeeya maamulaha lagu magacaabo kaalinta 28aad ayuu ku jiraa maxamadi ayaa lagu magacaabaa waxa uu keenay dhibco gaarayaal 76 dhibcood wax jibaara muusan ciyaarin bal shaxdiisa aan fiirino marka waxa uu wataa dhinaca golhayaha Mislea oo ciyaara kooxda Leeds ayuu wataa Michael Keane oo kamid ahaa daafacyada ugu fiicnaa toddobaadkan ayuu dhinaca daafaca haystay Cresswell oo kulankii kooxda Leeds iyo West Ham ciyaaray oo 2 dhibcood keenay ayuu wataa Shaw oo nasiib daro kulankii ku soo bilowday kooxda Aston Villa ay la ciyaartay Manchester United laakiin gadaal ka baxay ayaa u keenay wax dhibic muusan keenin wuxuu kamid ahaa ciyaaryahanadii dhaawaca ku seegay inta dambe ciyaarta ciyaaryahanka dhinaca khadka dhexe ugu fiicnaa Bukayo Saka ayuu watay oo u keenay dhibco gaaraya 13 dhibcood Ismaaciil Sarr waa xataa qiimihiisa sare ayuu u kacay oo 6.3 ayuu sii marayaa marka wuxuu kamid yahay mid kamid ah ciyaaryahanada maamulayaasha hadda aadka u iibsanayaan marba hadaa aragtid ciyaaryahan qiimihiisa sare u kacayo waxa badan qaab ciyaareedkiisa sidoo kale iibkiisana uu badan yahay marka taas ayaa keenaysa marka in ciyaaryahanka qiimihiisa uu sare u kaco Ismaaciil Sarr wuxuu keenay 9 dhibcood waxa uu dhaliyay goolkii barbardhaca ee kooxda Watford ay hal halka kula gashay Newcastle ciyaaryahan Yuri Tielemans ayuu watay waa kooxda Leicester Yuri Tielemans wuxuu sameeyay caawin sidoo kale dhibci dheeraadka labada ahaan ugu qaatay ciyaaryahan Mohamed Salah ayuu watay oo aad moodo in dhibcihiisii looga bartay toddobaadii la soo dhaafay inuusan keenin oo kaliya 7 uu keenay Tony ayuu watay oo dhinaca weerarka uga ciyaarayay Cristiano Ronaldo ayaa isna u ciyaarayay Tony 5 uu keenay Cristiano Ronaldo wuxuu kamid ahaa maamulayaasha mid ay aad ugu qasaareen toddobaadkan oo waxa uu ahaa kabtan ku xigeenkiisa ayuu ahaa oo 2 dhibcood ayuu ka helay laakiin kabtankiisa Jamie Vardy oo isaga xataa gool iska dhaliyay ayaa u keenay dhibco gaaraya 12 dhibcood marka la isku dhuftana ay tahay 22 dhibcood marka maamulahaas waxaan leenahay waa hambalyo maamulayaasha kalena waxaan leenahay ku soo biira boga sidoo kalena ku soo biira liiga oo dhalinyarada saaxiibada aad tihiin ama isku meesha aad joogtaan ama isku meel kooda shaqaysanna ugu yar inay ku soo biiraan liiga saaxiibyaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan xasuusinayaa inaad kusoo biirtaan YouTube-keena FPL Somali iyo sidoo kale dhinacyada Facebook, Instagram iyo Twitter-ka oo aan bog ku leenahay waxaan xasuusinayaa inaad kusoo biirtaan WhatsApp group-keena oo linkigiisa uu hoos saaran yahay sidoo kale groupka Facebook-na aad kusoo biirtaan aad iyo mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh